بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland meel kasta joogaan. waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda. waxaan jecelahay erayo kooban inaan ka nidhaahno xarigii ama xukunkii maanta laga gaaray Haatuf Guddoomiyihii iyo tifatarihii iyo institutionka labada intaba Somaliland waa qaran aynu doonayno inaynu wada daafacno inaynu wada dhisno inaynu ictiraaf u raadino Somaliland waxaynu ku iibinaynay inay jirto saxaafad xor ah Somaliland waxa ku iibinaynay in xorriyatul qowl jiro ma freedom of press Somaliland waxa ku iibinaynay in xuquuqul insaanka la ilaaliyo oo human rightsku aad loo ilaaliyo maxkamadda Haatuf qof waynu sugaynay way socotay go'aankana waa la sugayay laakiin waxa dhacay sida la sheegay saaka anoo 8:15 xafiiska fadhiya waxaad moodaa inay ku cusbayd dhaqanka garsoorka Somaliland maxkamad ama xukun la mid roorteeyo iyadoo aanay joogin eheladii Yusuf iyo tifataruhu iyadoo aanay joogin saxaafaddu iyadoo aanay joogin looyaradii u doodayay labada eedaysane iyadoo loo diiday dhammaan dadkii farakutiriska ahaa u suurto gashay inay halkaa joogaan iyadoo ay ahayd nidaamku aynu ka baranay garsoorka Somaliland in maxkamaddu ay noqoto mid furan waxaan si adag u cambaareynaa qaabka sida ugu adag u cambaareynaa qaabka uu dhacay xukunkaasi haddii xukunku cadaalad ahaa sabab loola dhuntaa oo dadka looga qariya oo ehelada looga qariya oo looyarada looga qariya oo shacbiga looga qariya may jirin waxa ay agtay xukunkaasi inaanu markaas si cadaalad ah aanu dhicin waxaanu ugu baaqaynaa nidaamka garsoorka Somaliland in madax banaanadiisa la ilaaliyo oo uu ka madax banaanaado wax kasta oo siyaasad ku saabsan waxaan mar labaad soo koobayaa xisbi ahaan arinta falkaas u dhacay si adag ayaan u cambaareynaa waxaan rajaynaynaa in xukunkaas cadaalad lagu soo celiyo Haatuf Guddoomiyaha iyo tifatirahana ay xorriyadoodii ay insha Allah ay helaan waxa kulliba la rajaynayay dawguna uu yahay in lagu maamulo saxaafadda xeerka saxaafadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaana cadaatay in xeerka lagu maamulin ee xeerar kale xukunka lagu maamulay waxaan soo jeedinaynaa in saxaafadda sideedaba lagu maamulo xeerkaas fariintan u gudbinayna shacbiga garsoorka iyo xukuumadda iyo mujtamaca dawliga waa intaas aad iyo aad baa mahadsantihiin waana mahadsantihiin gudoomiye magacaygu waa maxamed boof waxaan ka socdaa telefishinka Xukunka su'aasha ku weydiinaya waxay tahay xorriyatul qowlku wuxuu ka mid yahay qodobada asaasiga ah ee nidaamka dimuqraadiyadda waqtigii xisbiga kulmiye oo mucaaradka ahaa xariga saxaafadda iyo caburinta wuxuu uga faa'iideysan jiray in dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba uu olole kaga galo oo qolyaha deeq-bixiyaasha ama kuwa taageera nidaamka dimuqraadiyadda uu gaarsiiyo maxaad ka qabtaa aragtida dadka ah in xisaabta mucaaradka waqtigan ay yihiin kuwaan awood badan lahayn oo aan ka faa'iideysan fursadaha noocanaya oo taladooda ay ku kooban tahay inay cambaareeyaan marka uu fadhiyo aad baad u mahadsan tahay annagu xisbi ahaan ma jeclin inaanu فرصة سجارة وقفة سنة لكن وحنا دفاعنا
xuquuqda xorriyatul qowlka saxaafadda xorta ah ayaanu difaacaynaa haddana waa nagaa difaacnay waanu difaaci doonaa laakiin fursado gaara ma jeclin inaanu uga faa'iidaysano laakiin si guud ayaanu mar kasta aynu waajib noogu tahay inaanu difaacno